sheekhana wuxuu leeyahay saa'ilkan sheekh qof ayaa wuxuu ku nool yahay meel islaamka ku yar yahay wuxuu soo gataa hilib digaag ciddii gowracdayna lama yaqaano marka sheekhow hilibkaas ma la cuni karaa waxay ku xidhan tahay hilibka gowraciisa ama digaag ha noqdo ama xoolaha ha noqdeen waxay ku xidhan tahay meesha aad joogto xoolaha ama digaaga gowracooda ma in la gowracay u badan tahay mise inaan la gowracin laabudda macluumada inaad hesho waa meesha aad joogto hadday u badan tahay inaan la gowracin oo la ceejiyo ama luqunta la maroojiyo ama mishiinba ay jarto hadday sidaa u badan tahay meesha aad joogto asalku waxa weeye hilbuhu waa xaaraan markaa keliya waxaa laga soo reebiyo xalaal kuu noqonaya waxaad ogaato uun in dariiqo sharci lagu gowracay oo muxuu ahaayey ay ku caddaato haalibku hadduu yahay inaan la gowracin haalibku waa xaaraan iskama cuni kartid haddii meesha aad joogto sida haalibkii u badan tahay xoolaha la gowraco digaagaha la gowraco gowrac sharciga uu ka jirana markaa haalibkaasaad cuskanaysaayo wixii aad aragto waad iska cuni bismillaahi baad dhihi waadna iska cuni marka meeshaad joogtay ku xidhan tahay digaagun layskama iibsan karo wax kastoo muxuu ahaay layskama qaadan karayo meeshay ku xidhan tahay weliba waxay u baahan tahay in masalada aada looga taxadaro wayaan adduunkii waaba qasmayba adduunkii waa qasmay yacni ma aqaan inaad la socoteen maalmo dhoweyd kenya maxkamad baaba waxay fasaxdayba in hilibka dameeraha la cuno ma la socotaan hilibkii dameeraha in la cuno oo waaba la qalahayaa kawaanaaba hadda loo sameeyey markii horena qarsoodi baaban ku cunaynayba ilaahay amarkii intaasoo goor baa la qabtay dameero lasoo qalay oo kawaanada yaalla haddana waxa weeye tiin barihii maxkamad ugu dhufato waxaba la yidhi waaba la cuni kara waxaan ku arkahayay masar waa beled muslima masar waxaan ku arkahayay maalin dhaweyd waxaa la qabtay beer dhan oo dameeraha lagu koriyo kadibna lasoo qalo oo suuqa la keeno dadka la cunsiiyo si qarsoodi ah marka adduunkani waa adduun iimaanku ka tago fasaadsane hilib iyo markay timaado aada loo taxadaro wallahu aclam